haddii aad hore caasimadda Hargeysa ugu ogeyd hoyga fanka hadda waxa loo bixiyey magac kale hoyga macaashiqiinta kadib markii dhalinyaradii tiktokeriska ahayd si istaba jooga kulanti habboon daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo aad ku mahadsantihiin sida aad muuqaalada u like garanaysaan u share garanaysaan annaguna kama daalno inaan mar kasta idinka mahad celino haddii aad hore caasimadda Hargeysa ugu ogeyd hoyga fanka hadda waxa loo bixiyey magac kale hoyga macaashiqiinta kadib markii dhalinyaradii tiktokeriska ahayd si istaba jooga ay Hargeysa uga sii qulqulayaan muddo ka hor waxaa iska xaadirsay boqorada isteelka iyadoo aan ku qasaarin imigana ah marwo reer Somaliland ah amabase reer Hargeysa ah sidoo kale iyaduna waxaa gaadhay Happy oo maalmahanba ku sugnayd Hargeysa dhalinyarada ka mid yahay Dayax iyo qaar kale badan ay si fiican ugu soo dhaweeyeen haddaba ugu dambeyn waxa iska xaadirsay Hargeysa iska xaadirsay Shushu Cabdalla gabadheena yar midabka la jecel yahay leh ma garanaysaa asturan akhlaaqda leh ilaa mucaaradka ah degan waanu wadanaa annaguna run ahaantii iyadoo marar badanna reer Somaliland u muujisay ama reer Hargeysa u muujisay taageero shacab badanna kasbatay imigana soo dhaweynteeda si aad iyo aad u horeysa loo soo dhaweeyey oo waliba lagu soo dhaweeyey ciyaaro aydan intiina badan aydan maqal bal haddaba muuqaalada hordhaca ah ee soo dhaweyntii Shushu Cabdalla bal haddana la daawada isku arkay dhalinyarada badan ay ku dhaanteeyeen waxaa kaloo iyada ka mid ah waxaa laga yaabaa ciyaarta intiina badan ama qaar badan oo reer koonfurta inaana garanaynin ciyaartan waxaa laga ciyaaraa gobolada waqooyiga waxaana la yidhaahdaa seeliciya haddii aan khaldayna ha la saxo horta magaalada lagu sii qulqulaya ee hoygii fanka ahaan jirtay hadda hoyga macaashiqiinta ah horta maayarkeegu Cabdikariin Axmed Mooge isaga laftiisa ayaa macaashiqa isaga laftiisa maayarka laftiisa ayaa dhawaan xaflad uu ka qayb galay oo furitaan ahayd baa wuxuu si qurux badan oo milge iyo karaamo iyo sharaf xaaskiisa u qabo oo u weyneynayo oo uga sheegay hadal wadaadiidiyo meelaha fadhidana si gaara oo jacayl leh ayaan boqorada u salaamayaa waxba raalli baanu ku kala nahayo inaanu kala xili nimaadno waxa keenay shaqada aan ummaddan u hayo imika xabsi ka imi marka iyadana aad baan u salaamaya meesha fadhida ma arkay jecel xaajiyo marka in walba waxyaalaha la qarsan baa iska jiro nimaan gabadhiisu kaabani waxba noqon maayo meel la gaari maayo marka xaajiyadu halgan badan bay la gashayo allah karaameeyo sanadaan muddo xil u hayayna iyada waqtiga caruurta siisay marka iyadana aad baan u salaamay marka intaa laga yimaado
runtii maayarku sidaas uu sheegay haddii aanu isagu soo kala haynin oo aanu ummadda u shaqaynaynin iyaduna ayna howlaha guriga iyo ciyaalka iyo barbaarinta iyo dadaalkaba la garab taagnin isaguna shaqadaasi muu inoo qaban kareen maayarka caasimadda Hargeysana halkaas ayaanu ku salaamaynaa guud ahaan barnaamijkeena intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa waad ku mahadsantihiin sidaad noo like garanaysaan noo share garanaysaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaa waad ku mahadsantihiin